dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku dadaalaysaa qabashada doorasho dalka ka dhacda ha yeeshee qaabka ay damacsan tahay waa mid ay hore mucaaradka u diideen. madaxweynaha dalka ee xilli shaqeedka filla Soomaaliya ka dhamaaday muddada uu joogay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shuruudo hor la u gudbiyay xubnaha beesha caalamka sida wararku ay sheegayaan. madaxweynaha waxa uu sheegay in shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho dhawaan uusan isaga ka qayb gali karin, taasi beddelkeedana dowladda dhexe uu ra'iisul wasaare Roble u matali doono si ay ula kulmaan madaxda dowlad goboleedyada iyadoo filla Soomaaliya taasi haddii la diido ay sheegtay in iyadu shirka ay martigeliso xarunta dalka looga arrimiyana uu ka dhaco. shirqoollo siyaasadeed iyadoo laga cabsi qabo inay dhacaan ayay hore Axmed Madoobe iyo Siciidana u diideen ajiibitaanka shirar aan qabsoomin uu madaxweyne Farmaajo isbuucyo ka hor ugu yeeray Muqdisho inay yimaadaan, balse hadda waa ay ka duwan tahay midaas oo Axmed Madoobe iyo Dani waxay Muqdisho u yimaadeen in ay xirada xalane iyo beesha caalamka hortooda kula garnaqsadaan madaxweyne Farmaajo oo ay hayaan shuruudaas uu madaxweyne Farmaajo u gudbiyay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya lama oga sida ay ka yeeli doonaan, iyadoo dadka qaarkood ay rumaysan yihiin kooda siyaasadda u dhundaloola in ay shirkaas filla Soomaaliya u aragto mid iyada lagu gacmo xireeyo. agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya Fahdi Yaasin Xaaji Daahir oo loo arko maskaxda hagaysa dalka isla markaana muddadii Farmaajo madaxweynaha ahaa go'aanada ugu waaweyn isagu qaadanayay ayaa haatan wuxuu ka baaraandegayaa aqbalida baaqa beesha caalamka iyo inay tagaan shirka xirada xalane loo ballamay. dhowr waxyaabood oo siyaasad ahaan la isku hayo, amniga oo isku halayn badan aanay jirin, adeegsiga shakhsiyaad fulin kara shirqoollo dilal ah ayaa kala shakiga sii badiyey dowladda iyo weliba dhinacyada ka soo horjeeda. golaha midowda murashaxiinta madaxweynaha u tartamaya ayaa weli go'aankoodii ku dhegan oo ahaa in Farmaajo uu qoro warqad inuu yahay murashax iyaga la mid aan awood badan lahayn, xilna magacaabi karin, go'aanada dalka ugu sarreeyana qaadan karin. guddiga doorashada in laga saaro xubnaha shaqaalaha dowladda ee ku jira ayay sidoo kale murashaxiintu soo jeediyeen shuruudna ka dhigeen iyo in ay helaan fursad walba oo si xorriyad leh ololahooda doorashada aan lagu carqaladayn karin, magaalada xamar geeska geesna ay tegi karaan. waase ay adkaan doontaa in filladu ay ogolaato dalabkaas mucaaradka maadaama ay u aragto in la isku jilba dhigtay oo Farmaajo hadda wajahaya nacayb daran oo siyaasadda ah. murashaxiin isku hayb u badanna ay u heshiiyeen sidii uusan mar kale ugu soo laaban xukunka ama uusan ugu soo hawoon. isha ayaa lagu hayaa waxa ka soo bixi doona shirka ay beesha caalamka garwadeynka ka tahay ee xirada xalana loo ballamay in dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay dhawaan isku arkaan. waana fursadii u dambeysay ee siyaasadda Soomaaliya lagu badbaadinayo sida dadka ay badankood aaminsan yihiin.